warta waan guuleysay dan waagi dabadilaacisay ilcidna anagu waan guuleysanay maleeshiyaadkii ay shacab laga keenay dirbaba gacantaan ku soo dhignay ninkaas laba qoris taban gacanta ku dhignay xalay gelinkii dambe ayaan gacanta ku soo dhignay iyagoo buuro dushood maraya way ka yaaceen way qaadan kari waayeen marka waayahay daawadayaasheena sharafta leh ee ku soo dhawaada channelkayga ee gunta wararka oo aad kala socon jirteen xaqiiqda iyo sidoo kale dhacdooyinka ee wararka halka markaas waxaan diyaar u nahay inaan kuugu soo gudbino xaqiiqda iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee galbeedka ee Soomaaliland deegaanada galbeedka ee Soomaaliland ay gaar ahaan jabhadda Gedabuurse oo ay sahayaan jabhadda Ciise ay soo bandhigeen mid kamid ah maxaabiis oo ay ku sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen waxay shaaciyeen in maxbuuskan uu ahaa isla markaana jabhadda Ciise oo dhawaan ka yimid ay shacab waxay kaloo shaaciyeen in maxbuuska ay gacanta ay ku dhigeen isagoo ka tirsan jabhadda Ciise waxayna sidoo kale xuseen inay qaadi doonaan tallaabooyin military isla markaana ay u qaadi doonaan dhanka jabhadda Ciise jabhadda Ciise ayaa dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ka wada deegaanada galbeedka Somaliland iyadoo sidoo kale isla markaana muddooyinkii u dambeeyay ay si xoogaysanayeen dhaqdhaqaaqyo ay sidoo kale ay wadaan jabhadda Samaroon isla markaana isku hayaan iyadoo xiisada gobolka ay faraha ay ka sii baxday sidoo kalena ay xiisadu ay sayso kadib dhacdooyinkii iyo sidoo kale dagaaladii halkaas ka qarxay isla markaana ay geysteen khasaare kala duwan dhimasho iyo dhaawac gudoomiye Saleymaan isla markaana oo muddo ka badan 25 sanadood oo hayay xilka golaha guurtada ee maamulka Somaliland ayaa shalay si rasmi ah isaga casilay xilka gudoominimo isagoo sheegay inuu samaraba uusan ahaan doonin ee gudoomiyaha wuxuuna sheegay inuu diyaar uusan u ahayn inuu sii maamulo xilkaasi wuxuuna carabkiisa ku adkeeyay inuusan maraba aqbali doonin inuu sii hayo maadaama sababo jira awgeed xagga da'da iyo sidoo kale cilado ay ka mid tahay da'diisa oo kordhay iyo sidoo kale xilka muddada dheer uu hayay awgeed iska dhigay sidoo kale shalay waxaa la doortay gudoomiyaha cusub golaha guurtada maamulka Somaliland isagoona uu ka gudoomiye Saleymaan u mahadceliyay sidoo kalena uu sheegay inuu wax wanaagsan uu sameeyay ka tanaasulkiisa dawladda sharafta leh dhammaan wararkaasi ayaa halkaa idinkugu soo gudbin doona iyo xaqiiqda dhacdooyinkii ugu dambeeyay hadaa marka hore nagu cusubtahay nagu soo biir subscribe saar channelka like gareyso share garey muuqaalka asxaabtaada sii gaarsiin mahadsanid aynu gudagalno aan ku soo koobo ee warka jabhadda Ciise oo ay shacab ku soo duushay ayaa lagu qabtay deegaanka loo yaqaan Dabadilaac sida ay sheegeen jabhadda Gedabuurse ay soo bandhigeen mid kamid ah maxaabiista isla markaana ay ka qafaasheen jabhadda Ciise waxay sheegeen in ninkan ay gacanta ku hayaan isagoo watay laba qori waxayna sheegeen in ibka ay gacanta ay ku hayaan isla markaana ay marin doonaan xisaabta iyo sidoo kale halkii loogu talagalay waxay carabkooda ay ku adkeeyeen inay qaadi doonaan tallaabooyin hore isla markaana ay kula xisaabtami doonaan oo ay sheegeen inay samaraba halkaa aysan ugu hari doonin jabhadkan oo ay gacanta ay ku dhigeen jabhadda Samaroon sida muuqaalka aad ka arki kartaan waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin culus isla markaana ay samaraba aqbali doonin in lagu soo duulo deegaanadooda iyaguna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin hore warta waan guuleysay dan waagi dabadilaacisay ilcidna anagu waan guuleysanay maleeshiyaadkii ay shacab laga keenay dirbaba gacantaan ku soo dhignay ninkaas laba qoris taban gacanta ku dhignay xalay gelinkii dambe ayaan gacanta ku soo dhignay iyagoo buuro dushood maraya way ka yaaceen way qaadan kari waayeen marka adeer maleeshiyaadkan ay shacab laga keenay halkan adeer dalkan dad baa leh rag baa u dhintay rag baa shaqadoodii u waayay marka annagu adeer gacaliye dilmayna maxaabiistana saasaan ula dhaqmaynaa si wanaagsan baan ula dhaqmaynaa waanu ilaalinaynaa ragganaan jeedaa soo yaacaya habeen kastaba waar waxaa shaqadaa shaqo ka bedelaan haddii kale saasaa nii dambayn doonta nin kastoo maxay ahayd sow laguma yeedhin waa tegaysay qoriga kaali qaaday ku dhaheen Soomaa dhanka kale gudoomiye Saleymaan ayaa fariin adag diray kadib ka tanaasulkiisa xilka isagoona sheegay inuu gabi ahaanba isaga tanaasulay xilka gudoomiyaha golaha guurtada ee maamulkaasi ee Somaliland gudoomiyaha ayaa sheegay inuu samaraba aqbali doonin inuu sii hayo xilka muddo intaan ka badan wuxuuna sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu sii hayo isagoona xilka wareejiyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ما انت إذا قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan maanta idhaahaa gole waa dardaaran inaad dardaarankaana inay iga maqashaan waa ku mahadsantii golaha waxaan ugu mahadnaqaya ma aha uun istiqaaladda iga aqbaleene waxaan ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee daacadda ahayd ee muddadii aan xilka ahayn ay la shaqaysa ilaahun baa laga helaa taasoo kale si daacada oo xilkasa oo xanaana baa ay la shaqaysa aad baan idinku mahadinaya inay istiqaaliga aqbasheenna dee taagtayda aragteeno dee waa iyadana waa ku mahadsantii waxaa intaa ii raaceen dhowreray golaha mahadnaqiisa ka sokow iyaroo dardaaran ah oo shirguddoonka iyo idinkaba aan jeclahay inaan idiin jeediyo inay iga oggolaataan golaha wakiilada ee aynu walaalahana ahayn anigu daydi ka tegi ay walaalaatiina golahaasu waxaan ka odhanaya waxaad ogtihiin ba idiin sheegay aan sheegayeen golahaa wada shaqayn wanaagsan oo joogtaa inay yeelataan waayo hawshiinu xalaaloobi mayso haddii aydinaan wada shaqayn labada golaha oo weliba si joogta shirguddoonka inay idin labada gole raggana xidhiidhisaan labada golena wada shaqayn fiican ay yeeshaanoo sidaa qaranka loogu adeego waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa sida wanaagsan ii soo dhoweeyey iga aqbalay inaan xilka ka fadhiisto aada iyo aad baan ugu mahadayaa iyagana waa dowladdii dalka shaqayn ba idinku leey doorasho ma leh sidaa walba aynu jiray waan hubaa inaa uga shaqaynaysaan taana waxaan leeyahay si xoogla ha loola shaqeeyo si xoogla dowladda ha loola shaqeeyo waxaan ku darayaa niman halkan aniga eerbushi jiray oo nafta isugu keenay nimankan hortayda fadhiya ee saxaafadda nimankaa haaro badan baa la kala gaadhay iyagoo isaabaxayna waxaasaan leeyahay xil weyn bay qaranka u hayaan qaranka xil weyn bay u hayaan ma jeclin qodqodkii iyo imtixaan bay inagu kooda ku haynayaan qodada talaalka shirguddoon inay isu dul yeelataan oo waxay rabaan uun waxa weeye si hawshiinu idinku najaxdo waxaa u ordaya inaydin warkana idinku siisaane mid yacni cooda aanay suuqa ka helin kiina xaqiiqadii kiina ha kaga bakaynina sii idinkuna sidaa aydin qodqodka hadaynina mid cusub iyo mid joogi jirayba iyo dowlad midna sidaasuunbaa waxa weeye hadda waa nagu baraarujinaysa xilka iyagu wuxuu yahay ayaa nagu baraarujinaysaane dee ha joojidina waayahay aada iyo aad baa u mahadsantihiin maanta intaa waan leeyahay wax kaloo odhan maayo golaha waxaan ugu celinay golaha waxaan ugu celinaya dee waa wada joognaa kala tegi mayno
meel shisheeyana u baxsan haddaan meel gaarana waa caafimaadka soo gastaa mar walba laakiin halka weeye dadaalkaygu mar walba wada joognaa waa kala war qaadanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta idhaahaa gole waa dardaaran inaad dardaarankaana inaa iga maqashaan waa ku mahadsantii golaha waxaan ugu mahadnaqaya ma aha uun istiqaaladda iga aqbaleene waxaan ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee daacadda ahayd ee muddadii aan xilka ahayn ay la shaqaysa ilaahun baa laga helaa taasoo kale si daacada oo xilkasa oo xanaana baa ayla shaqaysa aad baan idinku mahadinaya inay istiqaaliga aqbasheenna dee taagtayda dhanka kale gudoomiyaha cusub ee golaha guurtada Soomaaliland ayaa hadlay isagoo fariin u diray Saleymaan iyo sidoo kale ka hadlay xaaladda maamulkaasi ee Soomaaliland sallallahu alayhi wa sallam ama ba'd assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ama ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan xildhibaanada sharafta leh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حلبانا شرفت له وادي أدبان دي سلام يا وحان كم هاد علينا يا وتمركوا لما هاد الكواد وحاسكلا إلى قادر كاه النور نعمية قوبة سوقين كاني دمانتين aan isku dooranay ilaahba mahadskale mahadda labaad waxaa leh xildhibaanada xilka ii igmaday ee ii cugtay inay aad iyo aad baan ugu mahad celinaya mahadda saddexaad waxaa iskale guddoomiyaheennii Saleymaan Maxamuud Aadan ee muddada dheer golahan inuu hogaaminayay ee dalkana tacab badan gashaday ilaahay ha ka abaalmariyo isagana waynu wada mahad celinayna dhammaanteenba mahadda saddexaad waxaanu u celinaynaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaheeda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi aad iyo aad baan mahaddaas u celinaynaa mahaddaas baan ku soo koobayaa iminka saacadatan halkaas baan dhammaanna waxaan kala u mahad celinaynaa shirguddoonka dinoo daadihinayay iyo shaqaalaha iyo saxaafadda dhammaantoodba iyo ciddii kale ee soo camirtay golaheena ee soo qurxisay iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wajazaakum allahu alkhayr وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idhaahaa gole waa dardaaran inaad dardaarankaana inaa iga maqashaan waa ku mahadsantii golaha waxaan ugu mahadnaqaya ma aha uun istiqaaladda iga aqbaleene waxaan ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee daacadda ahayd ee muddadii aan xilka ahayn ay la shaqaysa ilaahun baa laga helaa taasoo kale si daacada oo xilkasa oo xanaana baa ayla shaqaysa idinku mahadinay inay istiqaaliga aqbasheenna dee taagtayda aragtayno dee waa iyadana waa ku mahadsantii waxaa intaa ii raaceen dhowreray golaha mahadnaqiisa ka sokow iyadoo dardaaran ah oo shirguddoonka iyo idinkaba aan jeclahay inaan idiin jeediyo
inay igu oggolaataan golaha wakiilada ee aynu walaalahana ahayn anigu daydi ka tegi ay walaalahtiin golahaasu waxaan ka odhanaya waxaad ogtihiin ba idiin sheegay aan sheegayeen golahaa wada shaqayn wanaagsan oo joogtaa inay yeelataan waayo hawshiinu xalaaloobi mayso haddii aydinaan wada shaqayn labada golaha oo weliba si joogta shirgudoonka inay idin labada gole raggana xidhiidhisaan labada golena wada shaqayn fiican ay yeeshaanoo sidaa qaranka loogu adeey waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa sida wanaagsan ii soo dhoweeyey iga aqbalay inaan xilka ka fadhiisto aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa iyagana waa dowladdii dalka shaqayn ba idinku leey doorasho ma leh sidaa walba aynu ula shaqayn jirnay waan hubaa inaa ula shaqaynaysaan taana waxaan leeyahay si xoogla ha loola shaqeeyo si xoogla dowladda ha loola shaqeeyo waxaan ku darayaa niman halkan aniga eerbushi jiray oo nafta isugu keenay nimankan hortayda fadhiya ee saxaafadda nimankaa haaro badan baa la kala gaadhay iyagoo isaamaxayna waxaasaan leeyahay xil weyn bay qaranka u hayaan qaranka xil weyn bay u hayaan ma jeclin qodqodkii iyo imtixaan bay inagu kooda ku haynayaan qolada talaalka jirguddo inay sudul yeelataan oo waxay rabaan uun waxa weeye si hawshiinu idinku najaxdo waxaa u ordaya inaydin warkana idinku siisaane mid yacni cooda aanay suuqa ka helin kiina xaqiiqadii kiina ha kaga bakaynina sii idinkuna sidaa aydin qodqodkaa mid cusub iyo mid joogi jirayba iyo dowlad midda sidaasuunbaa waxa weeye hadda waa nagu baraarujinaysaa xilka iyagu wuxuu yahay ayaa nagu baraarujinaysaane dee ha joojidina waayahay aada iyo aad baa u mahadsantihiin maanta intaa waan leeyahay wax kaloo odhan maayo golaha waxaan ugu celinay golaha waxaan ugu celinaya dee waa wada joognaa kala tegi mayno dal shisheeyana u baxsan haddaan meel gaadhana waa caafimaadkaa wasoo gastaa mar walba laakiin halka weeye dagaalkaynu mar walba waa wada joognaa waa kala war qaadanay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حلبان شرفت له وادي أدبان دي سلام يا وحان كم هاد علينا يا وتمركوا لما هاد الكواد وحاسكال إلى قادر كاه إنه نعمية قبضة سوقين كاني دمانتين isku dooranay iyaaba mahadskale mahadda labaad waxaa leh xildhibaanada xilka ii igmaday ee ii cugtay inay aad iyo aad baan ugu mahad celinaya mahadda saddexaad waxaa iskale guddoomiyaheennii saleebaan maxamuud aadan ee muddada dheer golahan inuu hogaaminayey ee dalkana tacab badan gashaday ilaahay ha ka abaalmariyo isagana waynu wada mahad celinayna dhammaanteenba mahadda saddexaad waxaanu u celinaynaa dowladda jamhuuriyadda somalilan oo ugu horeeya madaxweynaheeda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
آدي أدبان محدث علينا محدث بان كسو كوبا يا إمك سعادة الكاس بان دماننا وحنكلو بعد بدون ك دينودا دهيري هي شغالة هي صحافة دمان توبا يعد سو عمرتي قولهنا سو قرحسي يقول آدي أدبي ومهتسيين waayahay daawadayaasha sharafta leh halkan waa janalkaaga oo adigu iska leedahay kala soco mar kasta xaqiiqda wararka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay aad baad u mahadsantiin